السلام عليكم بل حير كان اللي لقيسو وحير هذه كاجا يابين دونا حتى بدين هنا waxa suurtagal inaad jeclaan lahaydba xeerkan wuxuu ka soo baxay dalka Ingiriiska 1770kii xeerkan waxa uu leeyahay sida tan soo socota waxa mamnuuc ka ah gabadh kasta heerka ay doonto bulshada kaga jirtay in ay guur ku gaadho ama ay ku guuleysato iyadoo adeegsanaysa make-up iyo waxyaalaha la isku qurxiyo amaba ilkaha samayska ah ee lagu buuxiyo meelihii daldaloolay amaba timaha dhaadheer ee lagu khiyaameynaya ninka markay gabadhu timo gaabantay amaba aanay lahayn amaba cadarka udgoon ee gabadhu rag ay ku soo jiidan karto amaba dharka quruxda badan ee xariirta ah amaba dhar kabaha dhaadheer ee gabadha gaaban dheereynaya intaaba gabadhu hadday samayso waa ka mamnuuc waxaanay mutaysatay xeer ciqaabeed oo sharcigu sheegi doono marka qaanuunkaan arkay xeerka ayaan yaaban uri bal ka waran haddii maanta ay arki lahaayeen dadkii xeerka hadda jiyay waqtiga xaaladdu maanta siday isu bedeshay kolley dumarka uu ka xanaajinaya laakiin waxaa filaya rag badan inuu ku qoslin lahaa amaba ay ku farxi lahaayeen xeerkan isaga ah nala soo wadaag fikirkaaga xeerkan isaga sidaad u aragtaa